waxaa muslimiinta qeyrka jecel laga codsanayaa in ay ka soo qayb qaataan dhismo ballaaran oo loo sameyn doono masjidka Quba oo ku yaala deegaanka Lungu. Masjidkan ayaa waxaa salaadaha waajibka ku oogi doono dad tiro badan, balse waa meel aan ku filnayn dadweynaha halkaasi ku nool. Waxaa laga codsanayaa in ay ka soo qayb qaataan. Waxaad ugu qayb qaadan kartaa tabartaada sida xaanada, shamiindada, alwaaxa, dhagaxa iyo wax walba oo dhismahaasi u baahan yahay. Sidoo kale waxaad diri kartaa lacag inta tabartaada ah. Culimada masaajidkan gacanta ku haysa ayaa sharaxaya waxay u baahan yihiin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan salaamayaa muslimiinta dal idbid meel ay joogaanba meeshaan aan taaganahay oo media u taaganahay waa masaajid qaabka asleeyahay waxaan u maleynaa muslimiintu arkaayeen meesha horta aan joogno waa ismaamulkii Mandera gaaraan sublocation lafay magaalada Lungu. Meeshaan waad u jeedeen jaangadan waxaa loo sameeyay masaajid oo ummadana qariya u dhib qabta dadkii meeshaan joogana inta haddaan ay tahay way dhaafin waayeen. Marka hadda media waxaan taaganahay muslimiinta meel ay joogaan ha joogeena masaajidkan inay nagala qayb qaataan oo inoo dhisaan oo sida haddaan aysan nooga bedelaan. Masaajidka waa guri Ilaahay, annaka waan u joognaa kayna maha Ilaahay subhanahu wa ta'ala gurigiisu waa. Marka gurigaas aan rabaa muslimiinta meel ay joogaanba inay nala kaalmeeyaan. Ninkii ma taqaana asaga wala qaban kara, ninkii wax ku darsan kara, ninkii ma taqaana xoog ku darsan kara, ninkii carab ku darsan kara, shay alla in walba inta tabartiisa ayaan rabaa masaajidka in nagala kaalmeeyo meeshaan aan joogno. Waa lagu rafaasan yahay kulayla loo gelin lahayahay waa jeegad oo laga sameeyay wixii bahalaas qona waa iska dimaa dhibaato badan ku qabnaa intaan waa dhaafin wayni annaka markaan aan alamaan dadka qariyo degan marka muslimiinta aan gaarsiinayna walaalaha maxaa yeelay muslimiinta meel ay joogaan walaalo waa gurigan waa guri Ilaahay. Marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanala kaalmeeya waxaan rabnaa oo meeshaan u taaganahay masaajidkan in la dhisa muslimiinta ay nala murugsadaan. Alhamdulillah alladhi nazala al-furqana ala 'abdihi la yakuna lil 'alamin nadira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى له بيتا في الجنة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الله سبحانه وتعالى يقوم هذا إلى مارتي يقول بيت نوسه كل ميت مدة كل عيت ولا ليال هل كان عن هو ماني مساجد كان نظر كيسين ومار جيجنت كسم ميسن أولي مار مسجد مارتي قبا وكيا المار دجمة اللونجو مار لفيس في كاونتي مدارا كاونتي وهل كان باغ ودرينا مسلمين نلقى سوي جوان دتك خير رجال دتك مرحبا خير رجال دتك تاجرين تومار خير رجال مسلمين نلقى سوي جوان إنه يقول الله سبحانه وتعالى جيجنت كسم ميسن إنه نو بدلنا نجح مر أسرع سنسوي جوان هنا وأي مسلمين تخير ويجعل لي قال لك سومالي نلقى سوي جوان ويجعل لي يقول الله سبحانه وتعالى قال يقول بعيال أي لسان نلقى سوي جوان دل يدبيت مشي جوان ويجعل لنا مساي لسان صار درجة مار مسلمين ده عالم كسوي جوان عن باغ ودرينا إنه يقول الله سبحانه وتعالى أساسكم مع وأن المساجد لله إليه وحده ما رد أنا أسكال الله سبحانه وتعالى ما رجول الله سبحانه وتعالى مسلمين عن كدرينا إنه ينور لسان وبار مباتة إنه بدلانه وده إنه بدلان بدرينا هذا جوجش زوار كيسير مار سلال بيمار لقو تكذا مار خير الله ينسي مسلمين مالك الجوان هذا اللي يدعو أنكسر علينا أنكسر الله بايا مسلمين خير الله ينسي قول الله سبحانه وتعالى وعرفنا إنه ده إنه بدلانه ومارت إنه هذا يجان إليه سبحانه وتعالى سيد مركي قيامها الاسكوبة وقول الله سبحانه وتعالى الجنة عدينا الوسبة يا مسلمين تنقبلنا جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan cod u dirsanayna oo joognaa meesha liiraha countiga Mandera qaas ahaan district Lafey qaas ahaan ward Lungu waxaan cod u dirsanaynaa muslimiinta masaajidkan rojinkada laga sameeyay oo mabaatin aan ka sameeyay haddaan iska rafaadsan anagan aan ku hoos rafaadsanahay
oraxdan aynu u haysa muslimiinta aan u codsanayna inay masaajidka noo dhisaan ninkiis ilaahay wax si ay masaajidka noo dhisaan codsanayna waan ku celcelinayna muslimiinta ninkiis ilaahay wax si inay masaajidka noo dhisaan tiirkiisu waa u jeedin waa baaw gubishiisuna waa salli annagan intaan ka badan waa awoodi weyni dhulkiisa ayaan raadini dhulkiisa ayaan soo gadnay jingadan yarna waa ku dhisini insha Allah billahi taala waxaan leenahay muslimiinta meel ay joogaanba masaajidkan inay noo dhisaan ayaan codsanayna alxamdulillahi rabbil aalamiin wal aqibatu lil muttaqiin fala udwana illa ala zalimin wala alxamdulillah ilaahi baa mahad iskale subhanahu wa ta'ala waxaan halka aniga waxa la yiraahdaa macallimiinta hore waxaan ahay masaajidka imaamkiisa meesha macnaha waxa weeye meesha masaajidka gaar ahaan si jiraan masjid Quba la yiraahdaa waa tuulada Lunga meel kamid markaan alxamdulillah ilaahi baa mahad iskale subhanahu wa ta'ala dadka walaalaha muslimiinta muxsiniinta wax baxsadaan waxaan ka codsanaynaa meesha aan taaganahay way u jeedaan insha Allah ta'ala biidhnaahi al-kariim inayna kaalmeeyaan masaajidkaas ay wax nagala qabtaan taas ayaan ka codsanayaa alxamdulillah rabbil aalamiin وبه نستعين أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan joognaa countiga Mandera gaar ahaan Lafey gaar ahaan Alungu masaajidkan yar u jeedina maxaan ku raadin joognaa Alungu la yiraahdo masjidka magaceeda waxaan codsan haynaa muslimiinta meel kasta oo joogaan dal iyo dibad caalamka meesha ka joogaan masaajidkan maxaan ku raadin buulan u dhisnay jeengadan yaraan dhisnay muddo hadda 2 sano laga joogo tiirka isku istaagnay waxaan maxaan ku raadin ka hagaajinay baaw aboora cunay oo bahal yar hoos ka soo gala aboorka cunay waa dhici raba dhowr jaran kabnay masaajid gogol malaha kuleel waa loogu jiri waay inta yarna maxaan ku raadin magaalada dhexdeeda aruuris ilaahay qeyr ha si aruurisada aruuriyo maxaan ku raadin asaan lagu yeelay 2 sano maxaan ku jirnaa waxaan codsan haynaa muslimiinta meel kasta joogto iyo dadka maxaan ku raadin ilaahay as wax siiyay masaajidkan insaan nagula bedelo guri adnin leh maaha waa guri ilaahay waxaan codsan haynaa intii maqalkayna soo gaari oo codkayna gaaray inay maxaan ku raadin nala gurmadaan ay wax nala doonaan masaajidkan ay nala dhistaa hadda nin shaqo dhis ah iyo hadii maxaan ku raadin dad waxa isku dardartaa isaaba waxaan rabnaa guriga ilaahay in noolo dhise noolo hagaaji xaafada dhamaana meeshaan ay maxaan ku raadin masaajidka la aan haysanin masaajidka kale waa ku dheeraadeen koran u soo yara baxsanahay qeyr fara badan Allah in si intaas codsan hayna wixii faahfaahin oo dheeraad ah waxaad kala xiriiri kartaa eber 1-1-8-8-9-9-5 ama nambarka kale ah eber 7-2-2-7-8-7 haddii aan si kale u dhigo 01-11-88-90-95 ama nambarka kale oo ah 07-22-70-78-77 fadlan ka qayb qaado dhismaha masjidka